السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسودو هذا 10 كيني لبعتنا مايكروسوفت SQL Server 2017 كاسو aan kusoo qaadan doono habka loo sameeyo user marka la joogo Microsoft SQL Server isla markaana loo soo galo SQL Server-ka balaan tusaale ka soo qaadana marka waxa la kasana dawayno halkan ku gelinay Windows Authentication marka waxaan doonayaa inaan server authentication isla markaana user aynu nagu sameysana aynu ku soo galno kadib connect leenahay saynu sameeyno kadib halkan waxaan tagnaa security-ga aynu expand ku sameeynaa halkan login-ka aynu tagnaa right click baan leenahay marka new login kadib halkan waxaan ku qoraynaa login name-ka ama bas magaca aynu ku soo galino kadib waxaan leeyahay xamsi kadib halkan waxaan dooranayaa server authentication halkii uu ka ahaa Windows Authentication kadib halkan ayaa waxaan gelinayaa password-keena ku soo gali lahayn oo ah 123 confirm password-kana waxaan leeyahay 123 waxaan leenahay script nooga samee sida loo sameeyo waxay toolay user kadib okay baan leenahay marka user-kaas all the ways ayuu nagu samaysan yahay balse script-kan waxaan ka eegaynaa habka uu u sameynayo SQL query ahaan waxa uu sameynayaa waxa uu leeyahay create login samee magacaas oo loginkiisa la yiraahdo xamsi with password oo ku soo galay password kaas oo la yiraahdo 123 oo kan marka gelinay ah check preference on expiration-kiisana oo ka dhigaya marka script-ga sameynaya user-kuna waa sidan oo kale oo marka bilmetel hadii aynu halkan ka bedelno oo aynu ka dhigno xamsi oo af Ingiriisi ah kadibna aynu circle isku karayno wuxuu ku leeyahay command completed successful oo macnaheedu user-ka laftirkiisu wuxuu ku soo gali karaa xamsi 123 bal aynu isku dayno hadaba in aynu ku soo galno server authentication idina faarin tagno kadibna aynu raana connect object explorer halkiina had Windows authentication kan ka dhigno SQL Server authentication kadibna SAdan iyadoo default ahaan waxaan system administrator oo lagu soo galay balse aynu ku soo galno xamsihii hore aynu sameynay kadibna aynu gelino password-ka 123 kadib aynu raana connect maadaama uu password expiration ku on ahaa waxaan ugu qasbaya in aan maxay toolay aynu password-keena bedelno kadib waxaan ku bedelayaa 1234 confirm password-kana waxaan leeyahay 1234 sagana kadib okay baan leeyahay sidaas ayaan inoo soo galaya server authentication balaan mar kale eegno xamsihan laftirkiisa af Ingiriisiga ahaa isaga maadaama uu isagana password expiration-kiisa uu ahaa ay toolay on aan halkan tago kadibna aan raado connect object explorer kadib aan halkan xamsihan iska masaxo oo aan xamsi ka dhigo kadibna password-ka ahaa 123 sidoo kale aan geliyo connect aan raado marka isagana sidiisa la mid ah ayuu noo soo saaray password-ku waa expire garoobay password-ku waa bedeshay kadib isna waxaan bedelay sidoo kale 1234 ayaan ka dhigayaa confirm password-kana sidoo kale 1234 okay baan leeyahay marka oo soo xidhay marka halkaas inuu joogay 10 keenan haas loo sameeyay user. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.